salaan kadib waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan halkan isugu imaano inaan dhagax dhigno xaruntani oo ay soo dhiibatay mutabarricada Hamda bintu Abdiljaliil oo xaruntaasoo ka kooban 8 shay oo ah iskuul oo 12 fasal ka kooban iyo masjid weyn oo jaamic ah oo qaybta dumarka iyo qaybta ragga isugu jira iyo xarun caafimaad oo adeegyada caafimaadka dhammaan lagu qaban doono iyo dugsi quraan iyo xarun maamulka loogu talagalay xaruntaas lagu maamulayo iyo dukaaman oo dhowr dukaan oo ayadana lagu rangareyn doono qayb ka mid ah xarunta iyo ceel dhammaan adeegyadaasi isku duuban waxaan rabnaa maanta hadduu Ilaahay yiraahdo inaan meeshan dhagax dhigno xaruntan waxaa soo dhiibtay qof mutabarric ah ahlu khayr ah reer qadar ah ma yaqaano dhowsamare ma yaqaano Soomaali wax kama yaqaano wuxuu u soo dhiibtay Ilaahay dartiisa annagana mas'uuliyadana saarneed mas'uuliyadii waa soo qaadnay meeshii loogu talagalaan keenay insha Allah annaga mas'uuliyadeena waa ka bixi doonaa waxaan rajaynaynaa xarun casri ah oo dhameystiran inaan dhisi doono waxaan ku wareejin doonaa markaan dhameeyno kadib dadka deegaanka iyo maamulka aan ku wareejin doonaa ayagana mas'uuliyadooda inay ilaashadaan ayaga laga rabaa insha Allah waxaan kale u mahad celinayaa madaxweynaha xilligan qoraxda kulul aad u kulushahay soo dhaweynta in soo dhaweeyeen oo sida sharafta leh gobnimada ku jirta inoo soo dhaweeyeen maamulka galmudug aadam ugu mahad celinayaa insha Allah qadar jaaritina waxa balan noo ah meel kastoo laga soo dhaweeyo oo dadkeeda oo wax diyaar u ah in wax loo qabto anagana diyaar aan u nahay inaan wax la qabano garabkooda aan taagannahay wax kastoo karaankeena awoodeen ah inaan qabanaan diyaar u nahay insha Allah xarumahan oo kale meel kasta nasiib uma helaan meelaha waxa nasiib u helay marka dadka diyaar ku ah in wax loo qabto bas ayaa nasiib u helay marka arintan waxay ka soo bilaabatay wax garad deegaanka oo joolaal iyo team kale iyo xildhibaanka oo dhowr sano ka hor markasta nagu soo noqon jiray xafiiska nagu soo laaban jiray madaxweynahana dirisaanahay maalin kasta wuxuu dhigi jiray gobolka iyo deegaanka wax loo qabto marka insha Allah annagoo soo daahnay laakiin hadda kadib insha Allah ma soo daahi doono waa soo laaban doonaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa hay'adda Qadar Charity iyo gaar ahaan Hamda oo ayadu ah qofka oo lacagta bixinaya iyo dadka noo soo abaabulay xildhibaanka iyo maamulka Qadar Charity iyo raggii dadkii noo soo abaabulay oo noo keenay mashruuca dhammaantood uga mahad celinaynaa mahad celin ka bacdi inta maaragtay gacanta ka geysatay iyo cidda bixinaysana ilaahay maaragtay ka ajarsiiyo oo ka helaya insha Allah taala muddo dheer ayaan maaragtay ka daba cararaynaa Qadar Charity intaan uga harmaynay magaalooyin badan iyo meelo badan iyo masaakiin badan baa jiray ogaada waxaan rajaynaynaa si u bilaabatay tan waa fulin doonaa kuwa kale badan ee nala fulin doontaan baan Ilaahay ka rajaynayaa waxyaalaha noocaana cidii samafal weeye adduun iyo aakhiro qofkii samaystaa asaga maartay ajar iyo xasanaad ka helaya iyo intii ka soo shaqaysay labadaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa carruurta wax ku baran doontana Ilaahay ha ka dhigo kuwii mustaqbal fiican leh oo dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya madaarista marka la samaynayo waa fududahay laakiin in iskuulkii la hayo ayaa wax kasta ka muhiimsan annaga waagayagii ardada waa la tirin jiray ardada mudug oo dhan mudug iyo galmudug waaga isku region bay ahaayeen secondary oo dhan markii secondary bilaabanayaan gaalka ay kuma dhigeen secondary laakiin intermediate markaa joogay 300 200 ma dhamayno arday hobyaa laga keeni jiray ceel dheer baa laga keeni jiray ceel buur baa dhuusamare meel baa laga keeni jiray gaalka ayaa la soo keeni jiray waxaan xasuustaa 180 may dhamayn kuleejada loo oran jiray kuleejada ilaa daduma joogo meesha college bay lahaayeen qofkii waxa laga qaadi jiray bishii 25 shilin 25 shilin Soomaaliya ayaa chiefkiisa iyo cuntadiisa badeeqday qofka ardayga maanta intay tahay waa garan kartaa waa adduun maanta waxa laga hadlayaa 10,000 arday inay intermediate ka dhigato maanta inta galmudug aad iyo aad baan maartay uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa iskuulo tiro badan iyo arday tiro badan iyo dad fiican wax bartay Ilaahay inuu naga soo saaro
kuwii dhagaxan tirada badan macaalinta ka raadin lahaa ilaahay ha noo keeno kuwii dhulka hoostiisa batrool ka qodi lahaa allah ha noo keeno kuwii kalluunka noo soo qaban lahaa kuwii xoolaha noo daaweyn lahaa kuwii beera noo fali lahaa intaasoo dhan halkaan nooga soo bixi doona insha allahu tacaala